dawadayaal weli waxaan ka hadlaynaa colaadda ka aloosan Cerigabo. Waa waxaan jirnaa colaadda ka aloosan Laascaanood, laakiin maanta waxay taagan tahay colaadda ka aloosan Cerigabo. Xagee la kala maraya? Ciidamada xagee bay kala joogaan? Xabadda xagee ka dhacaysa? Xagee baa nabad ah? Maxay isbitaalada yaale? Waxaan doonaa barnaamijkan ku falanqeyno hadii ay yiraahdo. Kow waxaan ka bilaabeynaa sala socotaanba ciidamadu labada dhinacba markaan ka hadalno waxaa way magaalada labada dhinac kala joogaan. Halkaas madaafiic la isku turtuuraya hubkuna ciiska kala yaa socdo marka nin kasta batana guul ay u sheeganaya. Laakiin anagu waan guda galnay magaalada gudaha u galnay waan soo xuuraanay waa keenay. Ninka Iro waxa loo haystaa dastuurku jabiba leh oo talow Cerigabo u gurman waay. Idan waan arki doonaa barnaamijkan waxa uu heliyo saaxiibkay Shiine oo aad ولا سعودي حقيقة أرنتم شنو سلوا كل أرنتم منطقة ناسي في عمل ولا سعودي حاجة حمرية بدانا وما سنتهاي deegaanadan ama magaalada Cerigabo waxa ka jira colaad aad moodo in ay waliba inay soo gabagabado oo ay qaboodo in kastoo nabad lagu baaqay laakiin waxaad moodaa in si weyn la isoogu hobguranayo walito oo gurmadku oo dhinac kasta ka soo socdo oo dhinacan SSC oo gurmad badan ka imanayo dhinacan kaleeto ee Somaliland oo gurmad badan ka imanayo inta aynaan gurmadiyadaas iyo wixii u galin hadaynu magaalada ku soo dhawaano magaalada dagaal culus ayaa maanta ka dhacay oo dagaalkaasi ahaa dagaal labada dhinac aysan waxba isoola harin oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku ridahay subaxnimadii habeennimadii xalayto siqdii dhexe bay ciidamada booliska ee Somaliland war soo saareen warka ay soo saareen waxay ku sheegayeen in dadka shacabkii ay iskaga baxaan magaalada koox qowleysata oo magaalada ku dhex jirtan ay doonayaan inay ka sifeeyaan isla markiiba waxa la qaaday qoraalkii oo waxa weeye RSC intay qaadeen waxay dhaheen haye ballantu bari way noo tahay sax waa wax la isku sii wala sii ballansadayba saaka markuu waagu bariyayna waa la isku dhardhaaray oo dhinacyadii waxa weeye dagaalkii way isku dhardhaareen dagaalku markii horeeto marka horta xaqiiqo loo fiiriyo labada dhinac mid walba inta ka tabar ah ayuu dagaalkaasi isku dayaa in uu guul ka gaaro magaalada Cerigabo gudaheeda iyo banaankeeda labadaba dagaal culus baa ka dhacay maanta dagaaladaasi guula ay dhinacyadu kala sheegteen gelinkii horeeto waxa aad guula u sheeganayay qolada reer Somaliland oo muuqaalo iyo gelinkii hore xitaa muuqaalo badan bay soo dhigayeen qoladan SSC sidaas la mid ah muuqaalo fara badan bay iyaguna soo dhigayeen laakiin markii dambe waxaad moodaa inaan lagu kala adkaanin wali Cerigabo oo xaaladdu halkeedii taagan tahay wali gudaha la iskula jiro xogaha qaarkood waxay sheegayaan magaaladii waa Cirsila waa laga kala baxay kolkii horeba way qaybsanayd labadii qaybood ee la kala joogay ayaa la kala joogaa qolo walbana waxay leedahay dhinaca kale taan u gudbi doonaa laakiin qolo walba meel ayay difaac ka xiratay dhimasho iyo dhaawac intaba waa la soo sheegaya oo labada dhinacba in kasto oo aysan jirin ila madax banaan oo xaqiijin kara waxa meesha ka jira iyo sida ay xaaladdu u dhacday waxa jira xogo kale oo sheegaya in qoladan reer Somaliland dhib badan uu soo gaaray maadaama ay iyagu inta badan ahayeen cid weerarka waday ee doonaysay in ay difaaca magaalada dhaxdeeda ay baxiso oo banaanka loo baxo oo dagaalku ay ka bixiyaan magaalada qabsasho ay ku jireen qoladan kale tan difaac bay soo galeen laakiin difaaca ugu weyn wuxuu ahaa guriyihiin baa lagu kala jira hubka noocyadiisa kala duwan waa la isla dhacaya guriyihiin baa la baabiinaya magaalada qaybo badan oo kamid ah ayaa saaka madaafiic lagu garaacay waxa la sheegayaa goobo badan oo ganacsi inay gubteen waxa kale oo xoguhu ay sheegayaan in guriyo badan ay burbureen oo la burburiyay RSC waxay sheegteen controlka magaalada iyo airportka labadaba inay iyagu haystaan qoladan reer Somaliland wax wara lagama hayo oo ku saabsan halka ay joogaan laakiin xoguhu waxay sheegayaan in magaalada labada dhinac loo kala joogo labada goobood oo muhiimana qoladan SSC ay joogaan dhimashada iyo dhaawacana sida ay qoladan reer SSC sheegeen waxay sheegeen inay dhimashada iyo dhaawacaba ka badan yihiin dhinaca reer Somaliland laakiin reer Somaliland waxba lagama hayo waxa marka halka ka soo baxday dhinaca Somaliland eedayn aad u badan baa isqabsatay oo galinkii dambe ee maanta aad loo eedeynaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha cusub ee Somaliland iyadoo oo hawshu dagaalku u socdo buu kulankii u horeeyay golaha wasiirada uu Ciro maanta qabtay oo isbarasho iyo isxog waraysi waxyaabaha marka ugu muhiimsanaa la soo qaaday waxa kamid ahayd
dagaalka Ceerigaabo oo la sheegay inuu gobolka Sanaag iyo Ceerigaabo waxa ka socda uu mar kale madaxweynaha Somaliland nabad uu ku baaqay tii bay qoladii reer Somaliland soo qaadeen oo waxay dhaheen huwan buu noo soo hoosaasiyay oo kan ku wax qabanaya ma xaqay u boodeen qoladan reesasiina waliba kooxda musabix hada waxay taageersiin ba maxaa dhulbaantaha oo ilaahay iyaga kale magaalada dhinaca reesasiina waxay dhaheen mutaqana muxuu dagaal ku baaqi hubka iyo gaadiidkan oo Hargeysa ka soo diraya dagaal nabadna uu ku baaqaya waxba kama jiro waxa weeye hoosta ka ogsooniyo waxa weeye oo kula socda marka dagaalkii wuxuu noqday marka wali dagaal aan lagu kala bixin dhinacyaduna isu hub urursanayaan mid walbana uu hadda markii la fiiriyo xaaladdu sida ay tahay uu guulo sheeganayo ila madax banaan oo dhinacyada ka madax banaan aysan jirin qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahintu la hadashay waxay sheegeen inaysan waxba cadeyn karin laakiin dhib iyo burbur aad u badan magaalada uu soo gaaray dadkuna ay ka qaxeen marka waxaad moodaa dagaalkan mar kale Ceerigaabo inuu haddana bari halkiisii ka sii socon doono sida hadda xubno kala duwan iyo dad fara badan oo ka hadlay arrinta dhinacyada ay sheegeen waxa sid mudan waraaq ku qoray luqadda Ingiriiska ay soo saareen RSC oo war-saxaafadeed goor dhaweyta soo baxday waxa ay ku sheegeen in ay Somaliland ku soo duushay xasuuqna ay wado wixii ay laascaano ka sameeyeen wax la midana ay Ceerigaabo ka wadaan sidaas darteedna loo baahan yahay beesha caalamka iyo cid walba oo arrintan danaynaysa ama arrimaha Soomaaliya danaysa inay ogaato ma ayna ku soo saareen luqadda Ingiriiska hadii aysan qoraalkan u wadin beesha caalamka cidda lagu hadlaya hadda waa beesha caalamka waana wax caadi ah oo kolkii dagaaladan oo kale dhacaan inay dhinac kaste uu dhinaca kale iskaga bari yeelo arrintan waxa kale oo xusid mudan in qoladan reer Somaliland ay leeyihiin laamaha amniga ciidamada booliiska kali weeye waxa meesha jooga oo dad burcada ka sifaynaya magaalada kuwaasi oo Somaliland ka soo horjeeda waxa la isku hayana waxay ku tilmaameen in uu jiro qorshe Somaliland iyo dadka deegaanka oo ah in nidaamka Somaliland uu ka shaqeeyo Ceerigaabo halka dhalinyaradan iyo dadkan RSC ee is abaabulayna ay leeyihiin maya halkan waa inuu soo gaaraa calanka SSC laakiin waxa intaaba ka weyn baa jiro waxa ay dadkani iyo hawshu ka bilaabatay dad shacaba oo la dilay cid dishayna aan la garanayn oo waxyaabihii ay ka bilowday dagaalkii laascaanood ka bilowday way sida loo wada ogaa ninkii dagaalkaasi reer laascaanood hadda ay u yaqaanaan in uu yahay mid ku suntan ama astaamaha reer SSC Hadraawi oo dadkii ay colaadu ka bilaabatay ahaa amaba dhibka laascaano markii dambe waxa ka hogoostay ahaa mar kaleeto qaab nooci ah ayuu ku bilowday oo la xiriira dad shacaba oo la dilay cid shayna aan la garanaynin Somaliland lagu eedeynay iyaguna ay diidan yihiin oo leeyihiin koox qowleysata ayaa arrinta iyada ka dambeeyay aad baad mahadsan tahay daawadayaal inta maqaalku soo afay inta inaan ka bixin hal qodob baa jiray oo kii Ciro testimony ninkii Ciro ah dhinacana waa laga kacsan yahay oo waxa weeye dagaalkan iyo xaggan jileec baa lagu tuhmayay oo qoladii way ku kacsan yihiin dhinaca kale tana garyaqaanadii Somaliland baa waraaq ka daba qaatay iyo qoraallo oo waxay leeyihiin dastuurkii Somaliland buu markii ugu horeysay jabiyay waxa jira 3 wasaaradood oo isbedel ku sameeyay Ciro sax laba hay'adood oo awal hore aan wasaarad loo aqoonin oo hay'adda duulista hawada bay ahayd awal hore iyo madaarada Somaliland wasaarad buu ka dhigay wasaaradda qaxootiga iyo dadka barakacayaasha ah iyadana hay'ad bay ahayd oo ninkii xinif loo oran jiray uu joogi jiray dhibka badnaa ee waxa weeye aad muusoo difaaci jiray ninkaas hay'adii uu joogayna wasaarad buu ka dhigay labadaas waxa la yiri waa hay'ado diiwaan gashanaa inkasta oo waxa weeye aysan dastuurka ay xeerarka ay ku qoran yihiin markii la fiiriyo ay hay'ado ahayn hay'adii wasaaraddu way u bedelmi kartaa waa loo bedeli karaa inkastoo ay system u baahan tahay laakiin waxa lagu haystaa wixii wasaaradii amniga gudaha Somaliland iyo golayaasha deegaanka wasaaradii buu Cabdiraxmaan laba wasaarood ka soo saaray wasaaradda amniga oo kaligeeda hoo qalalan oo ninkan Sandheero wasaaradda loo dhiibay iyo wasaaradda golayaasha deegaanka iyo dastuurka oo laga dhaxbixiyay wasaaradii marka mid la leeyahay dastuurkii baa jabisay waa taas oo la leeyahay totally Somaliland dastuurkeeda ama xeerkooda waa ku khalad in wasaaradii noocaas ahayd la qaado wali ma aysan dawladdu ka hadlin laakiin xinif baa wuxuu u jawaabay garyaqaan guriga difaac waxa uu na sheegay inuu ka been sheegay xeerka hay'adda qaxootiga
in wasaaro laga dhigay xeerkan uu u adeegsaday uu leeyahay xeerkaasaa caddaynaya xeerkaas waa xeer qaxootiga iyo say somaliland ula dhaqmaysa caddaynayo ka hadlaye ma aha buu yihi xeer ku saabsanba wasaara hay-addan iyo say u dhismayso meeshaas waa lasku fara saaray daawadayaal intaas muuqaalka kusoo afmeerina way xooga insha allah oo soo kordho halka ka daawan doonta muuqaalka la wadaaga saaxiibka